إن أدنو خدت فنان ما يلنا يسوح معناه بلسه وحا معناه قيمة يلنا يا إن أدمر كورتهاي روح لصاحب فنكا مسنا لصوبحا وحيابو لغا فايدة سنكرا oo dhaxal ku reebi kara jiilalka hadda soo kobcaya hore haddaad u arki jirtay muuqaalka fanaanin ku luuqeeya heesaha raabka ee kala ah ilka case sharma boy lil balil waxa intaas boos kala baxaya oo aad u kasbanaya taageero badan fanaan socdaal yare fanaankan oo dardar xoogan ku socda ayaa soo qaaday heeso balse heesta saameynta lahayd ee aan soo qaadan doono adna aad ila daawan doontid ayaa ah always I'm keen ogow inaan ahay boqorkii tiktok maahan hip hop maqaayadaadan ka dhex qadayna waana halaynaa waana habaynaa cabaadka yareeyey xollo boolo waa ku furaa sidii furka saliida farta ku gashaa sidii faraantiga waa ku cabiidaa sidii cawanta feeraha ka tuma sidii dabalkii hebelow inaqa adi marqaati فعلي حتى مقلان مقعيقا وينحان because I'm سعودال I am lie on me on you نباحك لي حفرت دكعشو هاتيك لي جف ديقاقا على كدي باعكو لي هاي سوري قلوش إذا هو فرحت عبسي كما قبل بصدها كما بقو إلا وحا هاي لباح سعودال يرى يا هدا قرشينيا إن وشوكو خبصادو ميد كميدا هوتيلا دا مقدشو waxaana ku garabsiinayaa asxaabtiisa oo u muuqda kuwa had iyo jeer garab taagan showga qabanqaabadiisu ka socota Muqdisho ayaa la qorsheynayaa in daawadayaashu ay ku galaan lacag qiimaheedu lagu sheegay $30 haddaba daawade ma tahay mid u diyaarsan ka qaybgalka showgaas Soomaaliya waxay lahaan jirtay fanaaniin magac iyo mansab weli ku dhaxla bulshada Soomaaliyeed sida Allah u wada naxariistay فنان محمد سليمان تباع وليبا فنان حليمة خليف مقول oo laga xasuusto heesahoodii macaanka badnaa walina ka dhax guuxaya dhagaha shacabka Soomaaliyeed hadaba ila daawa mid ka mid ah heesahooda aad u macaan inankaygi haddaad الشرف لآيات هاي inankaygi haddaad timidey inankini aniga imidey kowde daawade muuqaalkan shargaree oo nala wadaag wixii fikir ah qaybta hoose ee commentiga waana ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan always I'm keen ogow inaan ahay boqorkii tiktok maahan hip hop maqaayadaadan ka dhex qadayna waana halaynaa